gudoomiyaha ururada shaqaalaha Soomaaliland Maxamed Axmed Cabdi Gaboose oo si gaar ah ugu waramayay warbaahinta dawladda Soomaaliland ayaa waxa uu ka waramay warqad ay soo saartay wakaalada biyaha ee magaalada Hargeysa inay ku wargelinayso in ay wakaalada biyaha ee magaalada Hargeysa ay keensatay saacado cusub oo qiimahoodu yahay midiba $50 isla markaasina waajib ay ka dhigtay in la iibsado muddo 3 bilood gudahooda gudoomiyaha oo arrimahaasi iyo arrimo kale oo la xiriira arrimaha ururada shaqaalaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ka hadlaya waxa kamid ah hadaladiisii. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Magacaygu waa Maxamed Axmed Cabdi gudoomiyaha ururada shaqaalaha ee Soomaaliland. waxaan maanta saxaafadan inaan ku yaarnay inaan laba eray sheegno mid waxa weeyaan xaqan wakaalada biyuhu warqadaas soo saartay oo ah inay $50 saacado ay maartaydu ay maamulkeeda leedahay ay tirash hal iibsado $50 taa waxaan leenahay lama diidana wixii wadanka horumar u kordhiyay ma diidanin كانوا الشقالة وحنا لنا شقالوا الله ما يقسمان public private private كشقاوة ما بهيبة وحيب عن سيدا قار كاس كيش قيستا شقدي بقى جاني بكايستا مركها ما بقى يبسك يراين أرضي جامعة سكول كي نلاشي مركها إذا ما يبسك يراين تيدا كلنا تساعد بهيان أو تعالى ساعد يلا سيني حاجة لقي ساعد نورا شوكتير شقين إنسان محله صعبانية درستو قال لقى يموت الخسارني أنتي دي مرة تعال حوين تساعد لو أنا هاي سنة وحي لو كنترولي ساعد بيه لو كنترولي متركوب كلا كنترولي هو ساعد ولو دي أربعة لكن ساعد يهرنا سكتورة وماشى دوتان جيه كان عصبنا يبسده هدي اللي بسوي أنا بيلمه ليو تحصل جدا هنا شغالة بابل جيد دولة وشقية يقولوا حوي شغالي وحوي عندهم شهر كوج أنتوا ليه هاي ولا وجه طلع عادي سنة لها ما قاعدين ودوي كي قرنكا لا رقم وكسعتها العشرات كلها يجوني وكسعتها نرشي سكول كي جامعة به يحيى إنه وكسعتها بيل كنا وكسعتها ومشارك بركي كنت كيتول taasiyadana seetay dawladda ahaan markaa weynad isla tashataa wakaalada weyn wasaaradii biyaha tamarta ay isla tashadaan dawladda kale waa isla tashadaan shaqaaluhu muxuu qaadi karaa maxamil karaa nolosha shaqaaluhu ma iibsan karaa saacada waa Mustafa Axmed Samakaab telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Hargeysa.